السلام عليكم. qarniga labaatanaad ayaynu hadda ku sugannahay. waa qarni lagu magacaabo dunida teknolojiyada. waa duni wada digital ah. wax walbo ama shay walbo hadda waxay ku xiran tahay aalada kombiyuutarka ama internetka. halkani waxaynu ku soo bandhigi doonaa 4 shaqo ama 4 xirfad sanadaha soo socda, khaasatan 15 sano ee dhow ay soo socda ay suuqa ka saari doonaan teknolojiyada casriga ah ee ku soo kordhay dunida qarniga kan ee labaatanaad. run ahaantii ma aha warkaan mid ku cusub dhegaha dad badan ee dunida ku nool, balse waxaa shaki ku jirin shaqooyin badan inay mustaqbalka halis badan ku soo wajahan tahay. shaqooyinkaas oo ay ka mid yihiin xirfadda koowaad waa dhakhtarnimada. inkastoo ay adag tahay marka dhinacyo badan laga eego inay dhacdo in si buuxda looga kaaftoomo dhakhaatiirta oo ay dhakhaatiirtu teknolojiyadaha cusub bedelaan, haddana maadaama wadamada xagga teknolojiyadda ku horumaray caafimaadkoodu lagu daryeelo teknolojiyadaha casriga ah ayaa yaraynayso doorka dhakhaatiirta ay ku lahaan doonaan mustaqbalka dhow ee soo socda, dhicina doonta in looga kaaftoomo wax walbo ay looga baahnaa dhanka iyo caafimaad ahaan dhakhaatiirta. xirfadlayaasha naqshadeeya dhismayaasha. xirfaddan oo inta badan bartaan ardayda fahanka badan, gaar ahaan kuwooda ku wanaagsan xisaabta. haddana waxaa la leeyahay maadaama maanta naqshadda dhismo ee aad rabto nooc walbay ahaato baad khadka si bilaasha ama qiimo jaban kaga helayso, waxaa iyaguna yaraanayso xirfadlayaasha loo baahnaa. suuqa ay yeelan doonaana teknolojiyadaha cusub ee ugu horeyso aaladda internetka ayaa suuqa ka saaraysa. xirfadlayaasha dhinaca xisaabaadka bartay, xisaabiyaal ama accountant sida qof walbaba uu yaqaan, way dhici kartaa inay suuqa ku jiraan muddo, iyadoo loo sabaynayo marba marka ka dambeysa softwareada dhanka xisaabaadka fududeeya ee isku soo badanaya qarnigan dunida, taasoo keeni karta in laga bakaaftoomo shaqaalihii badnaa ama xirfadlayaashii ay u baahan jireen shirkadaha. dabcan dood kuma taagna in sanadaha soo socda xirfadani ay ka yaraan doonto dunida. duuliyaasha diyaaradaha dagaalka. fursadaha shaqo iyo baahida loo qabo duuliyaasha diyaaradaha dagaalka waxaa loolanada ku ah diyaaradaha dagaalka duuliye la-aanta ah ee dunida ku soo badanaya dhowaanadan, iyada oo ay teknolojiyadahaasi inay sii bataan mooyaane hoos u dhac aan laga filayn mustaqbalka dhow. haddaba waxaa intaa inooga eeg muuqaalkeenii maanta. intaan ku kulmi doona muuqaalkan muuqaal xiga waxaan idinka tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.